aadan cabdulle cusmaan aadan cadde waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya kaas oo la doortay 1 Julaay sanadkii 1960 wuxuuna ahaa hogaamiyaha guud ee ciidanka. aadan cadde wuxuu dhashay 9 Diseembar 1908 wuxuuna ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wuxuu u soo dhaqaaqay magaalada Muqdisho si uu uga dhameysto waxbarashada iskuulka. Markii uu dhameeyay iskuulka waxa uu ka shaqo bilaabay xafiisyada Talyaaniga ee gumeysiga Soomaaliya ku haystay intii u dhaxaysay sanadkii 1929 ilaa 1941. waxaa la aasaasay ururkii SYL sanadkii 1943. sanadkii 1946 waxa uu ku biiray ururkii SYL kaas oo wakiil uga noqday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. 1 Julaay sanadkii 1960 waxaa xorriyadda qaatay Soomaaliya waxaana madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday aadan cabdulle cusmaan kaasoo prime minister uu noqday maxamed xaaji ibraahim cigaal. sanadkii 1964 waxaa dhacay doorasho taasoo mar labaad ku guuleystay aadan cabdulle cusmaan waxaana ra'iisul wasaare u noqday cabdirashiid cali sharmaake. doorasho dhacday 1967 aadan xilka lagu guuleystay waxaana si xor ugu cabdirashiid cali sharmaake oo noqday madaxweynaha Soomaaliya. wixii intaas ka dambeeyay aadan wuxuu ku noolaa beer janaal uu 8 Juun 2007 wuxuu ku geeriyooday isbitaal Nairobi ku yaalo. ugu dambeyntii 10 Juun 2007 Allah naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu degreed ku soo saaray in garoonka Muqdisho International Airport loo bedelo aadan cadde International Airport.